burca waa lambar 1 lambar 2 gana waxa laascano hargeysadan la yaabanayn ayaa bilow caanasho calmaaniyada anigu maan xulan runtii waa jeclay inaan ka hadlo ma diidani laakiin waxa xulay qoladay soo casubtay mala waxay ogaayeen nimanka inaanu ishayno marka iyaga igu soo qoray ana ma diidin calmaaniyuna qurana ma aha waxaanu ishaynaa cid ay ishayaana aniga ma aan arkaa dad bay soo qora beejkaygana waan soo dhigay calmaanintii halkaas la maraysaan sidan iyo calmaaninta anagu isma hayno wax shakhsiya naga ma dhaxeeyaan calmaaninta iyo kuwa la jaadkaaba ilaahay bay ishayaan islaamka ishayaan anuguna dadka islaamka baan ka mid ah ishayaan waxa laga yaabaa in xogaa dadaal inaan yara galiyo dabagal iyo baaritaan marka afar qolo way badan yihiin qolooyin halkan joogaaye waa afar qolo laakiin inta ugu cadcad ee aan ka hadlaa way se badan yihiin qolo waa ilhaadka nimanka la yiraahdo qolana waa calmaaniinta qolana waxa weeye niman la yiraahdo manzuniin qolana waxa la yiraahdaa sheegaanta saddexaad baa leeyahay sheegaanta saddexaad ma taqaanay laba sheegaanood baa taqaanino midna waa taroobka midna waa tii siyaasadda ahayd markii dhootana soo gashay kuwana waxa la yiraahdaa sheegaanta saddexaad calankooda sheegaantaas waa heli doontaan waxba anigu afka lama soo marin kara iyaga oo iyaga meel xaflada laga ma sheegi kare laakiin marka si daba gashaan calankooda waa helaysa qolana waxa la yiraahdaa kuwaas lama yiraahdo sheegaanta saddexaad qolana isha la yiraahdaa isha burcama isha burcama isha la yiraahdaa waxa la yiraahdaa afka qalaad waxa lagu yiraahdaa manzuniinta af Soomaaligana waxa lagu yiraahdaa dadka caabuda shaydaanka iyo tijaal cawr wa afarta horta ayaa way badan yihiin dadka jooga de laga soo horka laaban maayo waxa laga yaabaa qaar badan inaydaan maqalba mustashriqo kale iyo ama maqalkiisu ku yar yahay mustashriqo waa aabaha calmaaniga ninka dhalay marka afartana laakiin ugu cadcad aanu soo noqdo mawduucayga ereyga calmaani dadka qaar baa cilmaani yiraahdaa oo caynka hoos dhaba laakiin waxay sax ku tahay calmaani waayo cilmaani haduu leeyahay cilmi iyo meelo kale u kacayaan laakiin qoliyaha fasila magaca calmaani bay sax ku tahay calmaanigu waa aragti taariikhan hadii dib loogu noqdo kuniyo qarniga 16aad meelaha ayaa waxa iska hor yimi kiniisadaha iyo boqortooyooyinkii reer Yurub oo isku xidhan iyo dadkii wax soo bartay oo waliba caalamul islaam wax ku soo bartay Andalus dhulkii la oran jiray malaa'imka Isbayn baa leeyahay aqoonyahankoodii xakaa wax ku soo bartay caalamul islaam ayaa marka Yurub ku noqdeen waxay iska hor yimaadeen kiniisadihii wadaadadii kiniisadaha iyo boqorradii waxay aaminsanaayeen in wadaadada kiniisaduhu ilaahay wakiil uga yihiin dhulka wasida imka Israa'iil ay reer galbeedka u haysato Israa'iil reer galbeedka waxay ku qafishay in ilaahay ay wakiil uga yihiin adduunyada dabeetana way ka barakaystaanba marka waa la iska hor yimi aqoonyahanka cilmiga iyo aqoonta ka soo qaatay caalamul islaam iyo kiniisadaha iyo wadaadadii iyo boqortooyooyinkii oo dhinaca ayaa iska hor yimi dagaal xun baa dhex maray muddo la isjiidanayay waxa la jabiyay aakhirkii kiniisadihii iyo boqorradii aqoonyahankii baa adkaaday iyo shacabkii ayaa ka adkaaday markaasay dejiyeen xeerka ah wadaadku ha ku ekaado kiniisadda reer Yurub waxay yiraahdaan dalkii ugu horeeyay ee calmaaniyad lagu xukumaa wuxuu ahaa wadanka Faransiiska waana dalkii koobaad ee ay si joogto ah mar 200 sano meelaha shirka ugu qabsan jireen nimanka la yiraahdo mustashriqiintu caalamul islaam calmaaniyad waxay ka soo gashay dalka Masar dalkii ugu xukunka dheeraa ee calmaaniyiintu xukumaana wuxuu ahaa sida filayo hadana khaldanayn wadanka Turkiga waayo ordunkaga imika jooga mooyaane wixii ka horeeyo dhami calmaaniin bay ahayd waa nimanka Turkiga gaari xataa inay aadaanka iyo afkii diinto dhanba ay u bedelaan af Turki inaga odaybaa bari yiri salaada waan bedelaya Soomaaliya waan bedelaya
salaada barigii hore meydaan dhalinyara tiro badankiinu meydaan soo gaadhine waxa lagu tukan jiray annagu aan soo gaadhin usalli faradal salaatil duhri 4 ragcaati aadaan lillahi ta'ala ma'muuman Allahu akbar inta saloorin marka nin odayba wuxuu yiri inta ba af Soomaali baan ka dhigay haye bale wuxuu waxaan oranayaa duhur weeyo afar weeyo khasab weeyo waaqba weyn واق وإلهي مكدقيا مركاسا ليري وايي markaad ka baxaysa salaada aad oranayso assalaamu alaykum warahmatullaah assalaamu alaykum maxaad oranaysaa waxaan oranayaa buu yiri war ma nabadba turkigu sidaas oo kale ayuu sameeyay oo u bedelay afkoodii taasi waa taariikhda guud ee Almaanigu haddaba aragti ahaan muxuu qabaa Almaaniyiintu waa aragti qabta in la noolaado nolol aan diin lahayn oo ilaah lahayn oo aakhira lahayn nolol aan intaa lahayn in la noolaado ay aragti qabta weeye qoliyaha sii faleeya waxay yiraahdaan hal talaaba uga dhiman mulxidnimada Almaaniga mulxidku waa kan ilaahay ma jiro Soomaha Almaanigana hal talaabo ayaa uga dhiman waayo meelaha iska soo galaanba mulxidku waa saddex qaybood qayb aaminsan waxay aaminsan tahay mulxidka inaan ilaahay jirin qaybna waxay aaminsan tahay inaanu cadayn karin in ilaahay jiro iyo inaanu jirin qaybna waxay aaminsan tahay wuu jiraa laakiin dunida marka abuuray buu faraha ka qaaday shaqana kuma laha waana awoodna ma laha laakiin wuu jiraa magaca ilaah leeyahay qaybta ugu dambaysa weey Almaaniga ku asay soo galaya imika waxaan akhriyaa hadda halka marka fadhiyay imika Facebook waxa la soo dhigan akhriyay Mareykanka oo 500 milyan u ansixiyay in Asia iyo Afrikada waqooyi lagu faafiyo diin la'aanta dadka rumaysan in ilaahay jirin in lagu faafiyo 500 milyan ayuu baaskay wuxuu yiri akhyaarta hadaa nacdaan Almaaniga ba hadlay akhyaarta hadaa nacdaan Almaaniga eersataan aqoonta ragii lahaa hadaa ku aleegadaan adduunka nimaan aqoon asaagii wax la qaybsanayn hadaana ag joojisaan dharaar naga eexataan galool u baxlaa jiree adaahi ku doorsataan amuuraha aan isgeyin hadaa isku aabudhaan aftahan lagu soo hirtiyo ilbixi waa yaabaya ilbaxa isaga isu yaqaan malcaamad noloshu ma abaydin baa malcaamad ninka soo aflaxay halku ka abaaraya salaad ninka oogaya kitaab u adeegsada miyuu ku amaanan yahay siyaasaddu waa afkaar aayaadku ma soo galaan xafiis eedaan ka baxay muxuu ku astaysan yahay anana de markuu waxa inta nagu yiri anana waxaanu ilaah waa laga baqaa aayaha waa loo tudhaa fircoon uubtuu ku dhacay ulbaa la iskaga dayaa naftuna edab bay rabtaa war naftaada edbi Almaaniga ka sheekeynaya waa ayo yaa u malaynaysa manin maqan baan ka sheekeynaya baa u malaynaysa saddex meelood hadii laga dhigo wax laga yaabaa inuu laba meelood fadhigeena yahay halkuu joogaa baa u malaynaysa fadhigan inuu fadhino hadii saddex meelood laga dhigo waa laba gabadh baa inan bay su'aasho igu tiri habeenka aan soo jeedinay maasada maxaafad gaar ah bay leeyihiin bay tiri Almaaniyiintu ay degaan waxaan ku dhimay halkan ay ma ka fadhiyaanba meel ma degaan Almaaniga maxaa xagu ka dhashaa maxaa dhala Almaaniga waxa dhala laba shay baa loo lamaya malcaamada oo kitaab ka soo baxay ninkii kitaabka sitana khamiis buu sitaa intaas waa nin iskuulka oo buu ka soo baxay ninkii sitana suud buu sitaa nin hay'adaha ka shaqeeya wuxuu igu yiri 12 iskuul baa naloo diray buu in la soo sameeyo tuulooyinka laga soo sameeyo shuruudda koobaad ee tuulada iskuul loogu sameeyo waa maxay tuuladu waa inay malcaamad leedahay adoo waxaad ka fakari lahayd waxaan ka fakariyaa tuuladu hadaan malcaamad lahayn de taasa u baahan waxbarasho may tuuladu waa inay malcaamad leedahay iskuulka laga sameeyo malcaamadana lagu xidhayaa iskuulka macallinka loo yeeray waxa loo imsaad qaadataa $150 $400 baa lagu siinaya malcaamada soo xid tarbiyadana waxaad ka dhigtaa
isbuulka malcaamadda halkaas ku xidhmaysaa boqolkiiba 80 way xidhmeen malcaamadihii iyo madaraasadihii magaalooyinka ku yaalay way xidhburco markaynu hadlayno ceebka saliin baa dadku iska wada dhigaayeen inay wada wacan yihiin burco kaalmaha aadka u liitay ku jirta qolyahan aan ka sheekaynayo burco halkay ku jirtaa baa u malaynaysaa kaalmaha waxay ku jirtaa halista ah qolyaha wax baaray waxay ugu yiraahdeen qolyaha wax baaray number 1 number 2 waxa ah laascano hargeysadan la yaabanayn ayaa bilow caana shubata hadaan idin tuso sawirro burco ah oo fiidiyo ah oo moobilkayga ku jira rumaysan maysaan culture dhaqankii Yurub yaalay inana miyaad aragtay kaasaan hayaade inana miyaad aragtay oo aanad rumaysanayn mar rumaysana sida Allah aan ku sheego inuu inan yahay rumaysan maysid baalkii intan dibna waa soo casaystay wixii dumarkiisa soo mariyay dumarku gashay yahay sidii dumarku u hadlayaa ilaa aan ku sheego anigu aan ku dhahdo waa inan waliba waa ina hebel rumaysan maysid hoostaynu ka dunnay dusha qolfoofta ayna taagan laakiin hoosta waynu ka dunnay dhaqaalaha socda dadka fan baa ku socda waxaan waa laga shaqaynayaa sheegaanta saddexaad aan idin sheegayay ayaa waliba aad u xoog roon sheegaanta saddexaad cunsur afka waxa la oran jiray balaayo afka lagama dhowree waa khaniisiinta oo waa kuwa ugu xun sheegaantana calankooda sheegaanta saddexaad leeyahay